bismillaahi raxmaani raxiim kulanti haboon daawadayaal halkaad sida tooska aad nooga daawanaysaan waa telefishinka SDN TV waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aynu la yeelan doono gudoomiyaha golaha hogaaminta beesha Habargidir Professor Shirwac Professor marka hore ku soo dhawow TV-ga SDN waa ku dhawahay mudane Yuusuf waa mahadsantihiin waxaynu diiradda ku saari doonaa wareysigan gaarka ah barnaamijka diiwaangelinta oo aad ka daafurteen guud ahaan deegaanada dawlad goboleedka Galmudug marka hore barnaamijkaasi waxa uu yahay noo sharax bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina nabiyina maxamed wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallam 2019 bishii Sebtembar 5 ayaa golaha Habargidir hogaaminta lagu aasaasay magaalada xeebteedka degmada Hobyo golaha runtii hawlo badan oo u yiilay waxa ugu horeeyay in ay nabadeyn iyo dib u heshiisiin hawsheeda galaan intayna galin dhul dheer ayay soo mareen oo Hobyo ilaa iyo Matabaan Hirshabeelle la galay inta deegaanka kadibna Shabeellada hoose ayay galeen dibadda ay u baxeen oo deegaanada dibadda dadka bulshadu maanta waa la qaxay adduunka dhan baa lagu kala nooli marka halkaas la tagay dal iyo dibad xog ururin baa la sameeyay xog ururintii la sameeyay buug baa laga soo saaray la yiraahdo sidee nabad waarta Soomaaliya loogu helaa ma Habargidir loogu helaa يعني Habargidir Soomaaliya qayb kamida labayo bulsho kamida waxaan u raadinayna waa Soomaali weyn waxaan ararta u soo sheegayaa waxa weeye inaan diiwaangelinta su'aasha iga weydiisay aan u soo dago buuga saddex waxyaabood buu ka kooban yahay marka ugu horeysay waa in ay dadku nabad ku wada noolaadaan iscafiyaan dhab u heshiishiin la gaaro sida dhab u heshiishiin lagu gaari karayaahi waa in marka hore wacyigelin bulshada la sameeyo yaa gaari karaya yaa sameyn karaya odayaal dhaqameedka sameyn karaya marka odayaal dhaqameedkii laftigoodii baa u baahan yihiin in burburkii 30 sano wadanku soo galay waxyaabihii ay ka qayb qaateen bay kamid ahay waxyaabo la burburay ayay kamid ahay sidee loo tayeeyayo loo mideeyaa oo marka la mideeyo loo helaa dawlad arrimahooda qabato la wareegta ka kaalmaysa bulshadu sidee bay dimuqraadiyad dawlad ah oo hawlaha oo dhan qabata loo aasaasaa waa in bulshada ka qayb qaata bulshadii marka wacyigelin bay u baahan tahay si ay u doortaan yani qofkii hogaamin lahaa oo xildhibaanka u doortaan xildhibaankuna uu u doorto madaxdii ama madaxweynihii hogaamin lahaa wacyigelin dheer bay u baahan tahay si taasi u dhawoodo waa in dadkii la diiwaangelin timaada halkaas ay ka timid halkaa ayay ka timid in dawladnimada Soomaaliyeed si doorasho qof iyo cod loo helo waa in qof walba muwaadin uu diiwaan gashan yahay oo uu xaq 15 sano ka weyn oo xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto waxa la isweydiinayaa marka la yiraahdo diiwaangelin dawladda federaalka Soomaaliya waxay awood u yeelan weeday in shacabka Soomaaliyeed ay tirakoobto misna ay diiwaangeliso idinku sidee idinku suurtagelaysaa inaad diiwaangelisaan dadku u dhashay beesha aad gudoomiyaha u tahay mudane Yuusuf waa mahadsan tahay anu halka ma gaareen oo dawladda awood u yeelan weeday erayga ma qaateen oo dawladdu ummadda dhan mas'uul ka tahay laakiin sababa jira dib u dhac keenaya mar walba xilliga loo baahnaa in hawshan la bilaabo lama bilaabin marka ahayd in gabagabadiisa diiwaangelinta la sheego in la bilaabo ayay timaadaa taas way mid aan ku hortagana 4 sano soo socota 2024 oo hadda aanan ogeyn madaxweynaha soo baxaya ayaan rabnaa inaan si aan loo oran diiwaangelintii lama sameyn inaan kicino bulshada Soomaaliyeed oo dhan oo aan horyaal u noqono diiwaangelintu inay wax dhiba ahayn ku dhaqaaqid ay rabto kaliya inaan ku dhaqaaqno hawshaana u galno marka waxa la isweydiinayaa yay taacid idinka gacan siinayso kelmadda ayay tahay bulshadani waa soo dhaaftay
idinkan gacan siinaysa ereyga ah waxay tijaabo u soo samaysay inay ayagu gacantooda wax ku dhistaan ayadoo aan hay-ad iyo dawlad ka taageeraysa aysan jirin 260 kilomitir oo hobyo iyo gaalkacyo wadda u dhaxaysa oo dadku lahaayeen ma suurtagelayso dawlad mooyaane cid kaloo qaban karta aan la arag ayay gacantooda iyo jeefkooda ku dhisteen marka tijaabo ay soo arkeen weeye in wax kasta buur kasta la jabin karayo marka ay bulshadu isku duuban tahay wacyigelin taa horey u soo arkeen tanna waa midii labaad waana يعني وأد بأسهلين واحد نقول تاجري عندنا نقول تاجرتي وأنا دتك بالشدة أنا هوش أوها إنه أنا هين ما شفت برنامج كان مكاد كده فريسين ديجانا دولة جولات كجل مذوق براها بالشدة أو حلقة بالشدة يكون كلانت وحسي هذا لوجو هذا الهاي إن برنامج كان يتابعين أيام دولة الشيء مركا ضد بدن بالغي يابا تهون نوع عساين وكجرة وحياها بربر كوكاني كميتها هاي in wax qof Soomaaliya qabsaday ama uu qabtay loo dhigo meel kale oo shisheeyay si loo quuri waayo wax badan oo riya ahaaba Soomaali rumays maanta isgaarsiinta Afrika Soomaaliya waa qaybta ugu aan sareysay ku jirta dawlad ka iyo aad ka taageertay lama arkay bulshada ganacsatada ayaa hawsha fulisay khayr Allah siiyo ganacsigu maanta Soomaaliya meeshu maray waa adiga arkayo dawladaha dariska aan noo qori la yihiin marka cid waxyaabaha laga sheego media waa loo baahan dadku inay aamusin oo hadlaan waa la rabaa laakiin runta dad badan baa og oo aan rabin in diiwaangelintu suurta gasho kuwa aan rabin in diiwaangelintu suurta gasho ayaa laga yaabaa inay cod hoose ay kii codka dheer ku hadli lahaa hoos wax uu sheegaan marka anaga hadda cod dheer ku hadlayno oranayna SDN u gudbinayna in la qaban karo wax kasta bulshadu qabsan karto ayadoo aan dawlad iyo hay'ad ka taageer way dawladnimadu maxay tahay waa bulshada marka bulshada inay wax qabsato ayaan tusaynaa bisaliin waxa jira ma isku mid ayaad u diiwaan gelinaysaan xubnaha beesha ka tirsan oo shabaab u dagaalama iyo kuwa dawladda federaalka qaybta ka mudane Yuusuf waa mahadsan tahay anaga diiwaan gelinta habargeed baan diiwaan gelinayna wixii 15 sano ka weyn oo 19 sano gaaraya qofka 15 maanta aan diiwaan gelinay marka 19 sano xaq buu u yeelanayaa inuu diiwaan tala geliyo wax doorto marka anaga mabda'an waxa weeyaan inaan diiwaan gelino 15 jir habargeedada ayaan barnaamijkan ka bilownay 15 jir Soomaaliyana inay nagu daydaan oo hawshaas wadan alla wixii muwaadin ee wadanku xaq u leh waa diiwaan gelinayna dhinaca walba ka tirsanaada marka saas aan fahmo waxaan diiwaan gelinaynaa 15 jir habargeedada oo muwaadin ah oo wadanka xaq u leh aad u mahadsan tahay sidoo kale waxaa jirta in tuhun badan ay qabaan dadka qaar oo la xiriira haddii xogtaada aad u gudbiso beesha oo dad badan oo ka dhashay oo cabsi badan ka qaba ama tuhun badan ka qaba kaadinta xogta oo la xiriirta dadka la diiwaan gelinayo marka dad badan baa walwal ka qaba awood intee la eg ayuu golaha u leeyahay inuu kaadiyo xogta dadka la diiwaan gelinayo waa su'aal meesha ku jirta ana wax cabsi keeni karaya laakiin waxaan leeyahay bulshadu sidee noogu kalsooneed awalba ay noogu kalsoonaato aniga ayaa iska bilaabay diiwaan gelinta marka in aan xogta ay ninka gudoomiyaha oo u sareeya oo bilaabay inuu isdiiwaan geliyo ilaa 15 jirka cunuga ah ama ilmaha ah gabar iyo wiilba midkood doona ha noqdee xogtooda gacantan ku haynaa meel oo kama baxayso gacanta golaha meel nabadgelyo ku jirta wali waxaad daawanaysaan daawadayaal telefishinka SDN waxaadna si toos ah u daawanaysaan waraysiga gaarka ah Professor Shirwac oo ah gudoomiyaha golaha hogaaminta habargedir Professor su'aalahan ku soo laabanayna falcelin noocee ah ayaad kala kulanteen markii aad talaabadan diiwaan gelinta aad bilowdeen runtii baraarujinta ugu horeysay oo hawl kuma dhaqaaqi kartay ayadoo dadka aadan wacyi gelin markii barnaamijyada soo socdeen dawladdu ay yani xubno ka tirsan oo barnaamijka qaabilsan ay cadeeyeen in
dib u dhac dhaqaale awgiis ee hawshii dib u dhacday aad baa dadku u walwala waxaa la yidhi sidee mashiinka aad haysataan la sheegay inuu 12,000 yahay maxaa la yidhahdaa lacag intaas loo baahan yahay waan u caddeynay waan sheegnay anagu waxaan ku niri waddadii aan ahayn waddadaas ayaan marnay mashiinka aan wadanaana waa lacag $450 aan ka badnayn ayuu joogaa bulshadaana soo gadatay ayagaana soo gatay tababar baa la siiyey ilaa ku dhowaad dadka ilaa iyo gobolka Banaadir ilaa iyo gobolada la tababaray oo la rabo inay dad sii tababaraan waxay ku dhow yihiin ilaa 3,000 oo qof marka hore 400 aan ku bilownay 500 baan sii geynay maanta waxa weeyaan qof walba oo dhalinyaro oo aqoon-yahan waa tababaran yahay arrintaas una diyaar u yahay waxaan rajaynaynaa sanadkan inta dhamaan waxa aan ku farxano oo jawaab ah oo diiwaangelinta ka yimaada inay yimaadaan meeshii marka hore shakiga laga qabay oo ama dadku si kale u arkay ama maya waa laga soo gudbay aad bay hadda heegan ee diyaar u yihiin oo qof walba ku leeyahay iga bilow aniga iga bilow aad baan ku gartay ma jiraan beelo si gaar ah idinkaga codsaday inaad barnaamijkan aad gacan ka siisaan badana aad bay u badan yihiin laakiin waxaan u jawaabteenu noqotay aanu tijaabada marka hore ka baxno anagu maxaad nala wadaagi kartaa oo ilaa iyo hadda oo caqabad ah oo aad kala kulanteen barnaamijkan diiwaangelinta inta aad wadeen dulqaad iyo samir bay u baahantahay dadka 30 sano waxaa laga dhaadhiciyey hay-ad iyo dawlad mooyaane cid kaloo wax qaban karta in si jira marka in dadka loo sheego oo waqti la siiyo la geliyo in waxaadan qabsan aan cidina kuu qabanin bulshadu ayadaa dawladdii marka inay u istaagto hawsha ay u istaagto hawshana qabato wixii aan rabno inaan gaarno waan gaari karnaa haddii aan u samirno una dul qaadano marka bulshada waxaan la wadaagayaa hawsha iyo hawlo kale horumarinta in dadku u istaagaan aad ku gartay dawladda federaalka Soomaaliya socotaa barnaamijkan diiwaangelinta aad wadaan dawlad goboleedyo baa jira dawladda federaalka wakiil uga ah deegaanada marka dawladda federaalka waxa wakiil uga ah dawlad goboleedka ama dawladda Galmudug aan iraahdo madaxdeeduna waa la socotaa waqti laakiin Soomaan beesha meelo kala duwan ay degan tahay marka laga soo tago Galmudug waan sheegnay waxaan ku yiri safarkeeni ugu horeeyay Hobyo uga nimaad ilaa iyo Matwaano Hirshabeelle ayaan tagnay kadibna Koonfur Galbeed baan u gudubnay Jubbooyinka maxalliga Jubbaland iyo Puntland iyo waxa la meelay Soomaaliya waqooyi deegaan Soomaaliland waan tagaynaa dibadana waa u socdaa hadii la yiraahdo waan tagaynaa wacyigelin iyo warbaan geenayna tababar baa loogu furayaa Soomaaliya maanta meelo badan bay tagtoo qaxaday dadka qaxay bayna kamid tahay habar gudurta oo meelaha tagay marka waa looga daba tagay wala aadan ku gartay waxaad ka daafurteen barnaamijkan gaalkacyo Dhuusamareeb iyo Cadaado ma inta oo kaliya ayaa xafiisyada diiwaangelinta imika si rasmi ah kaga daafuran yihiin mise waxaa jira xafiisyo kale oo diiwaangelin ah oo dadku u dhashay beeshan ay iska soo diiwaangelin karaan Madan Yuusuf waa mahadsan tahay gobolada dhexe gobolka Banaadir baa ka horeeyay halka anigu aan iska diiwaan galiyay gobolka Banaadir baa oo halkan iska diiwaan galiyay waliba Banaadir gobolka Banaadir xaafadda hodan baan iska diiwaan galiyay marka kadib baa gobolada dhexe aan u gudubno gaalkacyo ay magaaladii wadda meeshii labaad noqotay gobolkii labaad oo Cadaado ku xigsatay Dhuusamareeb marka aad iyo aad bay hawsha u socotaa waana ku sheegay sanadkan dhamaadkiisa natiijo wax ku oola ayaan rajeynaa inay soo baxdo dadka Muqdisho ku nool ee inay isdiiwaangeliyaan rabo waxaad ugu bishaaraynaysaa in xafiis Muqdisho aad ku leedeen xafiis maaha marka cid alla cid inala soo xiriirta website-keena gelayaan waa helayaan jawaabtana waa helayaan aad iyo aad wali waxaad daawanaysaan waraysiga gaarka ah ee Professor Shirwac waxaad si toos ah uga daawanaysaan telefishinka SDN TV waxa uu waraysigan si toos ah idinkaga imaanayaa magaalada Muqdisho Professor markaaynu eegno Soomaaliya dadku waxay inta badan isweydiinayaan wali iyadoo oo aan la helin dib u heshiisiin sax ah oo beelaha qaar ay muran fara badan oo xitaa beesha marka aad hoggaanka aad qabatay dadaal badan aad ku bixisay marka mar haddii laga soo kabto colaadihii oo markaan loo gudbayo diiwaangelin
fursad nooce ah ayay u tahay Soomaalida inteeda kale barnaamijkan oo ay kaga dayan kartaa qodobka aan ku sheegan kuri buuggaraha buu ka qoran tahay waxa kamid ahay iscafis iyo nabadayn iyo dhab u heshiisiin waxaana intaba hirgeliya hawsha ayada waa odayaal dhaqameed burburkii baana taabtay meelihii la taabtay burburku taabtay bay kamid ahay marka in la tayeeyo oo la mideeyo dabeetana ay dawladdu waxay go'aankii qaadaan ay gaaraan inay dawladdu ay hirgeliso isku xirka bulshada iyo dawladnimada ayaa waxaan is leeyahay موقف يعني برنامجkaas wuxuu muujinayaa in laga soo kabanayo yani meeshii awal la joogay oo meel kale loo dhaqmo ka diiwaan gelintu marqaati bay ka tahay in horumarkii cagta la saaray oo bulshadu ay dooran doonto dadkii hogaamin lahaa oo berito madaxweynihii dawladda bulshadu dooratay xildhibaanadii dooran lahaa ay soo bixi doonaan ayaguna markaa si ka duwan waxyaabihii dhacdooyinka aan hore u soo aragnay oo 10 qaadasho leh ayay talaabadii koobaad diiwaan gelintu maaha meesha ugu dambeysay waxyaabo badan oo hiigsasho ah aan leeyahay cid dadku bulshadu ha u kacdo horumarinta wadanka ka qayb qaadashadeeda ayadoon cidna ku hadlaynin way dawladnimadu waa bulshada marka inay istaagto ka qayb qaadato horumarinta ayay qayb u tahay waana huba diiwaan gelintan inay natiijo fiican ama dhiirigelin ay bulshada u tahay maxaad xog naga siin kartaa deegaanadii aad ka soo furteen oo ilaa hadda aad nala wadaagi kartaa oo guul wax ku ool ah oo laga gaaray barnaamijkan aad iyo aad waxaanu marqaati ka soo noqdnay waxyaabo riyo loo haystay oo run noqday waxaanu wacyigelin u sameynay kun waayo arag odayaal dhaqameed ku jiro ayaa loo sameeyay haweenkii baa loo sameeyay aqoon-yahankii dhalinyaradii baa loo sameeyay ururada bulshada qaybahoodii yani marka gaalkacyo aan ka soo bilowno iyo gobolka Banaadir yani waxay ahayd magaalada xigta ayadoo la diyaar garoobay baan tageen yani telefishinka qaar Allah iyo SDN ayaa sii gudbinayay talaabooyinka iyo marxaladihii iyo wixii aan mareynay ayadoo dadku diyaar u yahay oo ay tartan kula jiraan sidii kaalkacay ka dhacday sidii gobolka Banaadir ka dhacday sidii cadaada ka dhacday sidii laslaha ayaan meel walba tagin gacmo furan ku soo dhaweynay marka wax walba wacyi gelinta ayaa oo in waqti loo samro waqti la siiyo marka aad iyo aad bay jawaab fiican uga helnay marka aan la kulanay dadkii haddii aan maanta erayga aan sheegayna si life nolol ayuu u gudbayaa haddayna taasi jirinin waqti dheer baa naga lumi lahaa marka waan ka mahad celinayaa SDN iyo nimanka wariyaasha ka shaqeeya aad baan ugu mahad celinayaa iyo dadka iskale maalgeliyay waxa weyn bay bulshada ay u qabteen oo wacyigelinta qayb lixaad leh ayay ka qaabteen dhacdo kastoo dhacaysana maanta qaaradaha waa lala socdaa marka waa guul weeyaan guul awal jirin oo soo hoyatay ugu dambeyn fursadan uu ku siiyay telefishinka SDN adigoo ka faa'iideysanaya fariinta ugu dambeysa aad la wadaagayso guud ahaan shacabka Soomaaliyeed maxay tahay aad baad u mahadsan tahay mudane Yuusuf waxaan leeyahay waxa la sugtaa ma harin qoqobnaantii la kala qoqobnaana waa laga baxaya maanta adduunku wuxuu noqday tuulo yar oo iska war haysta baraarujintii lagu kala hormaray hadda waa la soo gaaray wixii qof dhibayay maanta dad badan ma dhibayaan marka dadkii marka hore si khalad u fakarayay waxaan leeyahay sida runta ay dhabtaha loo fakaro Soomaaliya diiwaan gelinta danbay u tahay in tiro koob doorasho lagu galo oo la ogaado xildhibaanku inta tiro oo wakiil ka yahay ee soo dooran karta in la ogaado maaha in degmo lagu xiro aan wax ku nool aan la ogeyn iyo tiro dad bulsho ku nool ay yar tahay degmooyin waxaa jira aan dhammayn intii degmo laga rabay bulshada laga rabay laakiin magacu yaal ah marka taas in dad lagu xanibo oo lagu dabro waa laga gudbay maanta waxay taagan tahay xildhibaanku waa in tiro la isla og yahay ay soo doorata si uu berito u noqdo nin qof wakiil u ah tirada inta leeg marka waxaan leeyahay loo kaco waa la baraarugsan yahay maanta cid qalin ku qaldi karta ma jirto
ayadoo la wada og yahay horumarku wuxuu ka kooban yahay iyo halka la gaarayo aan mis wada hal wada fadhiiso horaha loo socdaan leh aad baad u mahadsantahay daawadayaal waraysiga gaarka aad ka daawanayseen telefishinka SDN ee aynu la yeelanay Professor Shirwac ayaan intaas ku soo gabagabeynayna anigoo Yusuf Maxamed Axmed ayaa si toos ah waraysigan idinku tabinayay waraysigan midkiisa xiga inta dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas nabadgelyo